xaggee ayaa uu ku isir leeyahay u dabaaldega sanadka cusub ee dhalashada ciise? xaggee ayay ka soo unkameen dhaqamada iyo caadooyinka la sameeyo xuska dhalashada ciise masiix calayhi salaatu wassalaam, sida qaabilaadda baaba nuweel, hadiyadaha la qaybiya habeenkan, iyo sida oo kale ilmaha yar ee loo qaatay inuu ahaa ciise masiix calayhi salaatu wassalaam? ma jira maalin ay isku waafaqsan yihiin oo isku raacsan yihiin masiixiyiintu in uu dhashay ciise calayhi salaam? sidee ayaa ay maalintani u gedisay garaadyada allakoodyada daluunta ka tuuray gebi ahaanba diimaha? muxuu yahay mowqifka qofka muslimka ah ee nool qarnigan 21aad? su'aalahan iyo qaybo kale oo badan waxa aynu kaga jawaabi doonaa barnaamijkeennan maanta. Christmas waa xuska iyo u dabaaldegga dhalashada ciise masiix, sida uu tilmaamayo Professor Hannes Heller oo ka tirsan jaamacadda Duke. waxa uu yidhi, labadii qarni ee ugu horreeyey masiixiyada muu jirin haba yaraatee wax dabaaldeg ah oo loo samayn jiray dhalashada ciise masiix. iska daa in la garto maalinka iyo bisha uu dhashay ciise ee xataa waxa madow iyo mugdi ku jira sanadkii uu dhashay ciise. in badan oo kiniisadaha masiixiyiinta ka mid ahi waxay aaminsan yihiin in uu dhashay 4 ama 5 sano ka hor dhalashadii ciise, halka qaybo kalena ay ka qabaan in uu dhashay 6 sano oo kadib. in badan oo ka mid ah kooxaha masiixiyiintu ilaa maanta oo aynu joogno uma dabaaldegaan dhalashada ciise masiix, sida shuhuudu yahwa, saaxiibiyiin iyo kiniisadda masiix. dhab ahaana kala badh ka mid ah caqiidooyinka masiixiga ma rumaysna dabaaldegga ciida miilaadiga. waxaaba intaas dheer kiniisaddu in ay arrinkaas u aragto shirki paganism. haddii aynu dib u raacno asalkii hore ee masiixiyadda, dabcaabudkii hore ee ku noolaa waqooyiga Yurub waxa ay 25 Disembar u dabaaldegi jireen cadceedda oo ahayd ilaaha ay weyneeyaan, oo xilligaas bedeli jirtay qabowga daran ee jiilaalka, halka beeralaydii koonfurtuna ay xilligaas u dabaaldegi jireen ilaahooda Suxal. dhab ahaantiina adduunka lagama arag oo lagamana aqoon dabaaldeg loo qaato dhalashada masiixa intii ka horreysay qarnigii 4aad ee miilaadiga, taas oo masiixiyadda soo galay boqorkii Roomaanka ee weynaa waa Constantine, oo carabigana loogu yaqaano Qustandiin, isaga oo u aqoonsaday maalintaas cadceedda loo dabaaldegi jiray isla maalinta dhalashada ciise masiix calayhi salaatu wassalaam. lamana arag dabaaldegga aynu maanta aragno ee aynu naqaano wixii ka horreeyey qarnigii 9aad ee miilaadiga. hase ahaatee ma yihiin caadooyinka la sameeyo xuskan ee ay ka mid yihiin qaabilaadda baaba nuweel, geedka dhalashada iyo hadiyadaha habeenkaa la isku doonsiiyay, kuwa ay masiixiyiintu rumaysnaayeen waayadii hore. waxa uu inoo sheegaya Hannes mar labaad in geedka dhalashada iyo shamacyadu aanay wax jiraba ahayn wixii ka horreeyey qarnigii 17aad. haddii la eego hadiyaduhuna waxa ay soo ifbixeen qarnigii 15aad, hase ahaatee may noqon waajib diini ah ka hor qarnigii 18aad. waayadaas waxa isaguna soo ifbaxay albaaba nuweel oo isaguna u taagan booska alqadiis Nicholas oo taariikh ahaan geeriyooday qarnigii 4aad. xuska iyo dhalashada ay lahaan jireen dabcaabudkii hore ee kiniisadda masiixiyadda ka horreeyey ayna qaadatay kiniisadda masiixiyaddu maxaa inagala gudboon muslimiin ahaa? ugu horrayn, nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu maalin maalmaha ka mid ah soo galay Madiina oo magaaladii muslimiintu ay joogeen ahayd. waxa uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam maalintaas arkay qolo saxaabadii ka mid ah oo ciyaaraya. dabadeetana waxa uu weydiiyey sababta ay la ciyaarayaan. waxay yidhaahdeen waa 2 cisho oo aannu jaahiliyaddii xusi jirnay. nebigu calayhi salaatu wassalaam waxa uu u sheegay, alle ayaa idinku beddelay 2 maalmood oo ka khayr badan, isaga oo leh inna allaha qad abdalakum bihimaa khayran minhuma. waxa uu alle idinku beddelay 2 cisho oo idinka khayr badan, waa yowma alfidri wa yowma aladxaa. sida oo kale ibnu cabbaas radiyallaahu canhu waxa uu qowlka alle yidhi subxaanahu wa tacaala, waaladiina laa yashhaduuna azuura ku fasiray in ay yihiin ciidaha iyo dabaaldegyada mushrikiinta iyo gaalada. rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam waxa uu tilmaamay
inna likulli qowmin ciidan wa haadaa ciiduna. qoom kasta iyo qolo kastaa waxa ay leeyihiin maalin ay u dabaaldegaan, innaguna waxa aynu leenahay ciiddeenna. intaasi iyada oo aynu sheegnay, sidoo kale waxaa iyaduna mamnuuc ah ku dayashada iyo dabagalka gaalada. sidoo kalena rasuulku sala allahu calayhi wasalama waxa uu inoo sheegayaa, man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum. ciddii qolo isu ekaysiisaa iyaga ayuunbay ka mid tahay. isu ekaysiinta, dabaaldegga, xuska, tahniyadda, ka qayb qaadashada, farxidda dareenka, iyo sidoo kale waxyaabaha ay gaaladu dib gaar u leeyihiin oo aynu kala qayb qaadannaa, waxa ay sheegaysaa man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum. innaguna alle ayaa inoogu beddelay 2 maalmood oo ka khayr badan maalmaha ay gaaladu xusaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.